iyadoo dalka ay soo mareen abaara baahsan kuwaasoo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan guud ahaanba gobolada bariga Somaliland oo dadkii xoolahaasi ka bixeen waxay haatan u soo jeesteen ay kuna dhaqaaqeen dhinaca dalagga wax soo saarka beeraha. Warbaahinta qaranka Somaliland ayaa booqatay deegaanka Ali Bixisay halkaas oo laga sameeyay beero gaaraya ilaa 25 kuwaas ay samaysteen dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolahoodii ay abaartu ka dhamaysay. waxaana indhaha iyagu qabanayeen guud ahaanba dadka iyagu shaqaalaha ka iyo qaybaha kala duwan ee beerahaasi samaystay kuwaasoo waqtigaasi ku guda jira faagista iyo beerista dalagga beeraha. waxaana looga warrameen inay haystaan caqabado dhowr ah kuwaas oo ka mid yihiin tababar la'aan maadaama aanay aqoon u lahayn dhinaca dalagga wax soo saarka horena ay u dhaqan jireen xoolaha. sidoo kale waxay wasaaradda beeraha guddiga ka soo kabashada abaaraha heer qaran iyo xukuumadda Somaliland bay ka codsadeen inay taageero dhinac walba la garab istaagaan dadkan xoolahoodii ka dhamaadeen balse haatan u jeestay dhinaca wax soo saarka dalagga beeraha. daawadayaal maanta waxaan joognaa goobaha wax soo saarka ee dhinaca beeraha ee ku yaala degmada oo gaar ahaan deegaanka Ali Bixisay. saaka waxaan halkaas kula kulanay beero badan oo deegaankaasi ku yaala kuwaasoo runtii aanu indhaha ku soo aragnay wax soo saar badan oo ay beeraha soo saareen. beerahan ayaa sida loo sheegay ama dadka deegaanku ay noo sheegeen waxa ku midoobay oo iyagu sarcay dadkii xooluhu ka dhamaysay abaartii baahsaneed ee gobolka soo martay. haddaba waxaan la kulanay qaar ka mid ah beeraleyda deegaankaasi kuwaas oo waqtigaasi ku guda jiray faagista ay faagayaan beerahaasi. anagu waxaan nahay dadkii reer miyiga ahaa ee abaarihii dabada dheeraaday ay naafeeyeen isla markaasoo wixii aanu haynay ay naga faramanoojiyeen abaarahaas. markii aanu cayn ka aragnay inuu dalkeenu uu dee laba beerood lahaa beer midhaa iyo beer xoolaad tii xoolaa way tagta. markaa waxaanu niyadayadii aanu ka keennay oo aanu ka shuuraysanay inaanu dhulka u dhaqaaqno oo wax kala soo baxno. waa annagaa faagnay oo waa annagaa qodayna oo haddeer waxaanu wadnay muddo ilaa 5 bilood baanu haddeer wadnay intii xooluhu dhamaadeen. beeruuna waa fara badan yihiin ilaa 25 beerood baanu hadda nahay. waa raggaas kaashatada ah oo dee waxa weeye nin walba meel buu ku dhuftay xoolahoodina way dhamaadeen. ma hayno wax maaragtay wasaaradda beeraha kama hayno maaragtay weli taageero kama hayno. waxaanse ku rajaynaynaa inaynu soo gaari doonto. waxaan u baahannahay matooraan u baahannahay seed baan u baahannahay waxaan u baahannahay wax lagu dhex karsado maaragtay dee dhaqaalaan u baahannahay waxaan u baahannahay cagaf baan u baahannahay waa annagaasoo dee waanu daalay intaasoo maalmo intaasoo bilood baanu qodaynay waa annaga waxba waa sixilaanahay. waxaanu wasaaradda beeraha ka codsanaynaa in nalala soo gaadho agabkii beeraha matooradii siligii siidhkii cagaftii lagu qodi lahaa biyo xidheennadii dhaqaalihii aanu ku qodi lahayn oo dee raggan dhaqaale xooli waa ka dhamaadeen. marka aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa waxaanu doonayaa in naga soo gaadhaan. aad iyo aad baanu ugu mahad celinayaa dowladda jamhuuriyadda Somaliland hana la eego codsiga iyaga hala soo tixgeliyo. nahay dadkii xooluhu ka dhamaadeen kadibna waxaanu aasaasnay beero waayo waxaynu lahayn laba beerood baynu lahayn beero way dhamaatay. beertii labaad waa taanu maanta gudagalnay wax khibrada iyo aqoon iyo haddii laba ku rooyahay waa arag aan u leenahay ma jirto. beeruhu way farbadan yihiin waa hal bixisay waa daraydheer waa badweyn waa cagaciid waa meesha la og macbuud cadde warbaahinta qaranka Somaliland aynaba.